كل شيء. إلهي سبحانه وتعالى أيا ملك الموت سؤال ويدي سبحان الله. ملك الموت إلهي وحوكو يري ملك الموت ألم تبكي مرة وأنت تقبض روح بني آدم. ملك الموت ما أويدي مر أدقو مركاسي كقاضية قف بلا آدم الروح كقاضية مجرتا مراد أويدي سبحان الله. ملك الموت بعد جوابي وحكوري يا رب مرنا وان قصلي مرنا وان أويي مرنا وان أرقاقحي سدح مربع إسو مرتيبي ويري عملقيا وكاسو الله كويري جل وعلا وما الذي أضحكك حكا قصلي سيي. ملك الموت أيا جوابي وحويري وحانها متقبحيو آذي قف ورقا إن روح وكسو قادو نين آذي أيانها وحانها لي ننكيو مركاسي يعني لبس كيسا إيو وحيس إسكاوي سنيو أنك قسنين أيان لكل مي مركاسا قصلي ويري يا روحنا وانكسو قادي انتو سنفريسا يعني سيد أمل كيسا إيادا ديليه سأوياي إيو الدنيا دا سيد ومركاسي يعني أقف كرايو شركيسا نظيفنتيسا سيد أقف كرايو إيو ملك الموت ما انت سيد أسعد واسدي والله وحالت مركاسا انكو قصلي أن روحك سوق هذا بويري. فقال الله تبارك وتعالى وما أبكيك يا ملك الموت وما أبكاك يا ملك الموت. ملك الموت مدى أتكو قصة شيء قرني محاكا أيسي مركاسا ملك الموت حيري بكيت عندما امرأتني أن أقبض الروح امرأته فذهبت إليها وهي في الصحراء وحن لأويب يري جواد أو مركاسي روح إن انكسو قاد آن آذي مركي آن آذي بوحان أركي جبديو ميل بحقوية صحراء جوكته وهدنا فولا نيسا سبحان الله أيان أركي بويري مركاسان سوغي اللي ندي روح لغا قادو وح معقول عنو قاسين ودنتاسيقنا أجشي سيمددي سميسا دماني مركاسان سوغي بويري إلا أي دجيسو أما أي دشو عنو جيرا مركي أي دشي دباديت أيان روح ذا كقادي أنيقو أوينيا oo la ooynaya cunugan iyo dayacnaantiisa iyo kaligiisa meeshaana meel saxara ay tahay qof bila aadna uusan joogin. marka saddexaad Allah subhanahu wa ta'ala ayaa weydiiyay wuxuu yiri wama alladhi faza'aka ya malakul maut maxaa ka argagaxsiiyay midaad ku qosashay garanay midii aad markaasi la ooydayna waan garanay maxaa markaasi kugu argagax badnaa maxaa ka argagaxiyay. markaasuu malakul maut wuxuu yiri waxa iga argagaxiyay mar anigoo markaasi aaday in ruux qof nina in ruuxa ka soo qaado ninkaasoo wali caalim ah sheekh ah la yaqaano in ruuxa ka soo qaado ayaan aaday. markaas waxaan arkay ama aan agtiisa ka helay nuur oo qolkiisa buuxiyay. qolkiisa waxa buuxiyay nuur oo markaasi caadi ahayn ayaa qolkii buuxiyay. wa kullama iqtarabat min ghurfatihi mar alla markii aan u dhawaado qolkiisa waxa igu soo booday nuurkii ayaa igu soo booday. mar alla markii aan qaabilaba nuurkii ayaa igu soo booday malakul maut. markaas nuurkii ka argagaxay waan yaabay. markaas argagaxay waan yaabay buu sidii ayaan markaas anigoo ku sugan aan hadana ruuxda ninkii ka soo qaaday malakul maut. muxuu ahaa ninkan nin caalim buu ahaa. midkii labaad xigay muxuu ahaa midkii labaad xigayna waa wiil yaro hooyadiisa ay dhalayso malakul maut meel balaan ku arkay la ooyay. kan saddexaadna nin adduunyada iska dhaxteen badayo oo warba iyo waay u haynin waa. markaas Allah u jawaabay jalla wa ala markaas wuxuu ku yiri atadri man huwa ar-rajul mataqana ninka ka oo markaasi nuurka qolkiisa buuxiyay oo ruuxa nuur dartiisa alla soo qaadayay mataqana malakul maut ma yiri ya rabbi. markaas ilaahay wuxuu ku yiri innahu dhaka ad-dhiflu alladhi qabidat ummuhu wa taraktahu fi sahraa. waa ninkii markaasi hooyadiisa ay dhalaysay cunugii yaraa oo hooyadiisa ay dhalaysay oo adiga markaasi ka oysiinay meesha saxaraana aad aga soo tagtay
ka ayu ahabu Allah subhanahu wa ta'ala takafulat bihi wa lam atruk li ahadin aniga ana kafala qaaday qof bila aadna agama aanan soo tagin buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala